marka hore waxaan salaamayaa madaxda kala duwan ee dawladda federaalka ah madaxda dawladaha xubinta ka dawladda federaalka ah madaxdii hore ee Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed ee maanta halka isugu yimid waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalin fiican sababtuna waxa weeye khilaaf inagu raagay oo muddo dheer aynu isku haysanay oo guul ka gaari weynay ayaa maanta halkan ku gabagaboobay oo aynu ku heshiinay inaynu doorasho qaran oo loo dhan yahay qabsano waxaan mahad u celinayaa dadkii ka qayb galay ee ku dadaalay in heshiiskaas doorashadu aynu qabsano waxaan si raacinayaa in heshiiska aynu gaarnay maanta ee doorasho inaynu galno aan guul ka gaarno oo si cadaalad ah oo madax bannaan oo xor ah aynu ku gaarno intaa kolkaan idhaahdo waxaan rabaa dhallinyarada Soomaaliyeed oon arkaayo xoogga ay leeyihiin oo boqolkiiba bulshada Soomaaliyeed ay yihiin kolkay ugu yar yihiin boqolkiiba 75 hal erey baan odhanayaa dalkeenna dhibta ugu weyn ee haysataa waa qabyaalad weyn idinku eedayn maayo sababta waxa weeye ka idinku weyn ee 40 jirka ahi haddee dawlad muu arag oo kolkuu ugu weynaa da'daasi 10 jir buu ahaa waxaad dhalateen dhammaantiin iyadoo aynaan dawlo lahayn oo ay ka daran tahay dagaallo reer hebeluuni ay jiraan waxaan shaki ku jirin inay saameyn weyn idinku leedahay laakiin codsigaygaan caawa idiin soo jeedinayaa waxa weeye walaalayaalow Soomaalinimo midnimo isku duubnaantiin oo adiidaan in laydin qaybiyo qabaa'il laydin qaybiyo la isku kiindiro inaad diidaan weeye arrintaas markaan sidaa leehayna ereygaasi siyaasiyiintu u socda intaa anaa halkaasaan kaga baxaya waxaa maalmahan beryahan socday cabasho ay soo jeedinayaan waalidiin wiilashoodii tababar ciidan loo diray waa cabanayaan waxaan dawladda federaalka madaxdeeda u soo jeedinayaa in waalidiinta cabanaya oo sheegaya inayna ilmahoodii muddo 2 sano ku dhow ayna arag ay war kala yihiin waxaan madaxda sare ka codsanayaa ee dawladda federaalka waalidiinta in loo jawaabo ugu dambayn waxaan u soo jeedinayaa hal arrin prime minister annagoo joogna Baydhabo waa 2006 ayaa fanaaniin Soomaaliyeed noogu yimaadeen halkaas waxay noo sheegeen riwaayad bay noo dhigeen hal erey baan ka soo qaadanaya dawlo ehel bay rabtaa oo micnaheedu yahay
fikir bay rabtaa aqoon-yahan bay rabtaa aqoon u leh bay rabtaa ma aha aqoon-yahan oo dhan waa inuu garanayaa dawlo waxay rabto ee uu qabanayo awowyadeennii hore waxay odhan jireen xoolo ugub ka gado ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogeyn waxaan leeyahay prime minister kulley xukuumadda waa la dhisayaa xukuumaddaa la dhisayaa haddee waxa weeye ama wiil iyo gabadh markaa jaamacad ka soo qalin jebiyey oo ku nasiibso ah sababta waxa weeye xoolo ugub ka gado micnaheedu waxa weeye yacni neef baad iibsanaysaa dhaqankeennii weeye neefka aad iibsanaysaa waxaa dhici karta neef aan curanin waad ku nasiibsanaysaa micnaha dhaqanka xoolaha caanaha ayaa sidaa loo lahaa ama curad aan iin iyo xumaan midna lagu ogeyn ama neef dhalay oo aan la yaqaano waxtarkiisa sidaa waxaan ula jeedaa madaxda aynu xukuumaddeenna u dooranayno inay noqdaan kuwo aqoon dawladeed leh kuwo shicibka soomaaliyeed oo dhan inay wasiirre u yihiin ee aan noqon kuwa meel daba intaasaan ku soo gebagabaynayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin